asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xiran janalkeena. Waxaan muuqaalkan gudihiisa idinkugu soo gudbin doonaa qiso aad u layaab badan oo qof walba oo dhagaysta dareenkiisa taabanaysa, oo qalbigu uu la gilgilanayo oo indhuhuna ay la ilmeynayaan. Waxaana ka hadlay rasuulkeena calayhi salaatu wassalaam. Waa qisada saxaabigii uu dhulku iska diiday janaasadiisa. Wuxuu cibro qaadasho u noqday khayrkiisa si ay ugu waana qaataan muslimiinta. Furashadii magaalada Mako ka hor ayuu Nabigu sallallahu calayhi wasallam sariyo ama koox mujaahidiinta ka mid ah u diray meesha la yiraahdo Batnu Idam. Waxayna sariyadaasi ama kooxdaasi ka koobnayd 8 qofood, waxaana ka mid ahaa saxaabi lagu magacaabi jiray Maxlam ibnu Jathama. Ujeedka uu Nabigu sallallahu calayhi wasallam kooxdan halkaas ugu diray ayaa waxay ahayd in dadka qaarkii ay u maleeyaan in Nabigu sallallahu calayhi wasallam uu ku wajahan yahay jihadaasi, markaasoo uu Nabigu sallallahu calayhi wasallam isku diyaarinayay in uu duulaan ku qaado magaalada Mako. Kooxda mujaahidiinta ka mid ah ee uu Nabigu sallallahu calayhi wasallam Idam u diray ayaa waxay soo mareen nin ka mid ahaa qabiilka loo yaqaano Macaadiya oo magaciisa la oran jiray Caamir al-Ashjaciyi. Ninkan ayaa wuxuu watay ari oo uu halkaas ku daajinayay. Markii uu arkay kooxda mujaahidiinta ah ama mujaahidiinta ka mid ah ayuu ku salaamay salaanta islaamka. Markaas buu nin ka mid ahaa kooxda mujaahidiinta ah ee la oran jiray Maxlam ibnu Jathama u soo dhaqaaqay si uu u dilo ninkani. Labada nin ayaa waxaa horay u soo dhexmaray khilaaf iyo colaad shakhsiyadeed oo aanan wax xiriir ah la lahayn islaamka. Markaas bay kooxdii mujaahidiinta ahayd intooda kale ka reebeen oo u diideen in uu dilo. Waxayna ku dhaheen, ninkani salaanta islaamka ayuu nagu salaamay, waa nin muslim ah. Kadibna wuxuu ku yidhi, wuxuu salaanta islaamka noogu salaamay cabsi uu ka cabsanayay in aan dilno awgeeda ee iimaan kama ahan. Isla markiina wuxuu ku boobay fallaartiisa, halkaas ayuuna ku dilay, wuxuuna ka qaatay arigiisii. Kadibna waxay Nabiga sallallahu calayhi wasallam u sheegeen wixii dhacay. Markaas buu Nabigu sallallahu calayhi wasallam aad u carooday. Kadibna wuxuu Alle subxaanahu wa tacaala soo dejiyay aayaddan: yaa ayuha aladiina aamanuu idaa darabtum fii sabiili illaahi fatabayanuu walaa taquuluu liman alqaa ilaykum assalaama lasta mu'mina tabtaguuna carada alxayaati addunyaa facinda allahi maghaanimu kathiira kadhalika kuntum min qabl famanna allahu calaykum fatabayanuu inna allaha kaana bimaa tacmaluuna khabiira. Kuwa Alle iyo rasuulkiisa rumeeyayow oo shareecadiisana ku dhaqmayow, haddaad dhulka ku socotaan oo aad u baxdaan jihaad fii sabiilillaahi ah, hubsada waxa aad samaynaysaan iyo waxa aad ka tagaysaan. Iimaankana ha ka diidina oo ha ka saarina qof ay shay ka mid ah calaamadaha iimaanka ay ka muuqato oo aanan idinla dagaalamaynin. Waxaa dhici karta in uu yahay mu'min qarsanayay iimaankiisa. Ha dilina qofkaas dhaqaale adduunyo awgii. Waxaa Alle subxaanahu wa tacaala agtiisa ahaaday dhaqaale iyo siismo uu idinku kaafinayo. Idinkuba islaamku markuu bilowga ahaa, sidaas baad qoomkiina mushrikiinta ah uga qarsan jirteen iimaankiina. Kadibna Alle ayaa idiin barwaaqeeyey, wuxuuna Alle subxaanahu wa tacaala idin siiyey cizi iyo iimaan iyo awoodba. Si fiican u hubsada arrimihiina.
alle subxaanahu wa tacaala waa uu og yahay wax walba oo aad samaynaysaan. si xeel dheer ayuu alle subxaanahu wa tacaala uga warqabaa arrimihiina, wuuna idinka abaalmarin doonaa. wuxuu muxallim ibnu jathaamat allaythiyi dilay nin ka mid ahaa ashjaciyiinta oo muslim ahaa. taasina waxay ahayd diyadii ugu horraysay ee uu rasuulku bixiyey calayhi salaatu wassalaam. wuxuu Cuyayne ka hadlay dilkii loo geystay Caamir al-Ashjaciyi maxaa yeelay wuxuu ka soo jeeday qabiilka la yidhaahdo Qatafaan. sidoo kale Aqrac binu Xaabis ayaa muxallim dhankiisa ka soo hadlay maxaa yeelay wuxuu ka soo jeeday qabiilka la yidhaahdo Khintif. kadibna sawaxankiibaa isqabsaday, waxaa sii siyaaday khilaafka iyo doodda. markaas buu rasuulku sallallahu calayhi wasalama yidhi, yaa Cuyayna, miyaadan diyo inaga qaadanaynin? markaas buu Cuyayne yidhi, maya wallaahi, ilaa murugtii iyo naxdintii ku dhacday xaaskiisa ay ku dhacdo isagana xaasaskiisa. wuxuu yidhi, markaas buu sawaxankii sii siyaaday oo buuqii iyo khilaafkii iyo sii xoogaystay. markaas buu rasuulku sallallahu calayhi wasalama mar kale yidhi, Cuyaynow, diyo miyaadan naga aqbalaynin? kadibna Cuyayne ayaa mar kale yidhi, maya wallaahi, ma yeelayno ilaa dumarkiisa ay la kulmaan murugta ay la kulmeen dumarkiisa oo kale. ugu dambayntii waxay nin kala dilay ahalkiisa oggolaadeen in ay qaataan diyada. wuxuuna rasuulku sallallahu calayhi wasalama ku yidhi, haddeertaan naga qaata 50 halaad, 50ka kalena waxaan bixinaynaa markaan ku laabanno magaalada Madiino. waxay muxallim ibnu Juthaama reerkiisu u keeneen nebiga sallallahu calayhi wasallam si uu rasuulku sallallahu calayhi wasalama alle subxaanahu wa tacaala ooga dambi dhaaf dalbo. markaas buu rasuulka alle sallallahu calayhi wasalama hortiisa soo fadhiistay isagoo indhihiisu ay ilmaynayaan. kadibna wuxuu yidhi, rasuulkii Ilaahayow, waxaan sameeyey wixii ku soo gaaray. alle ayaana u toobad keenayaa subxaanahu wa tacaala. alle dembi dhaaf iiga dalab rasuulkii Ilaahayow. markaas buu rasuulku sallallahu calayhi wasalama ku yidhi, ma hubkaaga ayaad qof muslim ah ku dishay? kadibna wuxuu rasuulku sallallahu calayhi wasalama cod dheer ku yidhi, allaahumma laa taqfir limuxallim, ilaahayow ha u dembi dhaafin muxallim. wuxuu yidhi, markaas buu mar kale ku laabtay oo ku yidhi, rasuulkii Ilaahayow, waxaa iga dhacay wixii ku soo gaaray. alle ayaana u toobad keenayaa. ilaahay dembi dhaaf ii weydii. wuxuu yidhi, markaas buu rasuulku sallallahu calayhi wasalama isagoo cod dheer ku dhawaaqaya ku celiyey oo yidhi, allaahumma laa taqfir limuxallim. markaas buu rasuulka hortiisa ka kacay isagoo ilintiisa isaga tirayay faraqa dharkiisa. ibnu Isxaaqna wuxuu yidhi, waxay ahalkiisu sheegeen in nebigu sallallahu calayhi wasallam u dembi dhaaf dalbay oo uu faruurtiisa u dhaqaajiyey u dalbidiisa dembi dhaafka, balse wuxuu doonayay inuu dadka ogeysiiyo sida ay alle subxaanahu wa tacaala agtiisa ugu weyn tahay daadinta dhiigga qofka muslimka ah. intaas kadibna dhowr maalmood markii ay ka soo wareegatay waa uu geeriyooday. markii uu geeriyooday muxallim ibnu Juthaama ayay qoomkiisa soo duugeen. markii ay waabariisteenna waxay arkeen isagoo yaalla qabrigiisa bannaankiisa isagoo dhulku uu iska soo tufay. markaas bay mar kale ku celiyeen qabrigiisa oo dib u duugeen, balse waxay arkeen in mar walba uu dhulku iska soo tufayo.
markaas baa lagu amray in ay 2 buurood dhexdooda iska dhigaan. markaas bay halkaas iska dhigeen oo dhagaxaan ku kortuuleen ilaa ay uga qariyeen. kadibna waxaa halkaas ku cunay dugaagta. rasuulkuna wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam, dhulku wuxuu aqbalaa oo gudihiisa ku jira kuwo isaga ka shar badan, balse wuxuu alle subxaanahu wa tacaala doonayaa inuu aayad idin tusiyo iyo inuu idinka waaniyo dilka qofka mu'minka ah. kadibna waxaa soo degtay qowlka alle subxaanahu wa tacaala, yaa ayuha aladiina aamanuu idaa darabtum fii sabiili illaahi fatabayanuu. sidoo kale allaha ka raali noqdee waxaa Anas binu Maalik laga wariyey in uu jiri jiray nin nabiga sallallahu calayhi wasallama waraaqaha u qori jiray. wuxuu ninkan ahaan jiray nin bartay albaqara iyo aali cimraan. qofkii albaqara iyo aali cimraan bartana wuxuu dhexdeena ka ahaan jiray qof aad loo qadariyo. kadibna ninkan ayaa ka ridoobay islaamka oo ku laabtay mushrikiinta. kadibna waa uu dhintay. markaas buu nabigu sallallahu calayhi wasallama yidhi, inna al-arda lam taqbaluh, dhulku ma aqbali doono. markaas bay intay qabri u qodeen ku duugeen. kadibna waxaa subaxii la arkay isagoo dhulku iska soo tufay oo bannaanka yaalla. markaas bay mar kale god u qodeen oo ku duugeen. kadibna waxay subaxii arkeen isagoo dhulku iska soo tuuray oo bannaanka yaalla. markaas bay mar kale god u qodeen oo ku duugeen. subaxdii waxay arkeen isagoo dhulkii iska soo tuuray oo bannaanka yaalla. kadibna waxay isaga tageen isagoo bannaanka yaalla. wuxuu yidhi Anas, wuxuu Abi Talxa ii sheegay inuu tagay dhulkii uu ku dhintay. markaas bay soo mareen isagoo bannaanka yaalla. markaas buu Abu Talxa ku yidhi, muxuu yahay kan sha'nigiisa? waxay dhaheen, marar badan ayaan duugnay, balse dhulkii ayaa diiday inuu aqbalo. wuxuu ahaan jiray nin nasraani ah. kadibna waa uu islaamay. wuxuuna ahaan jiray nin bartay albaqara iyo aali cimraan. wuxuuna ahaan jiray nin nabiga sallallahu calayhi wasallama fariimaha u qora. kadibna wuxuu ku laabtay nasraaniyadiisa. wuxuuna dhihi jiray, Muxammad waxba ma garanaynin waxaan aniga u qoro mooye. markaas buu alle subxaanahu wa tacaala dilay. kadibna waa ay duugeen. kadibna waxaa subaxdii la arkay isagoo bannaanka yaalla. markaas bay dhaheen, waxaa sidaas ku sameeyey Muxammad iyo saxaabadiisa. saaxiibkeena ayay intay qabriga ka soo faageen bannaanka keeneen markii uu ka soo cararay. markaas bay mar kale qabri u qodeen oo weliba aad ugu dheereeyeen inta ay awoodeen. kadibna waxay subaxdii arkeen isagoo dhulku iska soo saaray oo bannaanka yaalla. markaas bay ogaadeen in uusan dadka ka mid ahayn. kadibna waa ay iska tuureen. فاللهم توفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaasheena sharafta leh, ha iloobina muuqaalka inaad like saartaan oo aad la sii wadaagtaan asxaabtiina. haddii aad nagu cusub tahayna fadlan ha iloobin janalka inaad subscribe saarato si aad inoo dhiirageliso, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga.